السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير سومالي الملك استاذ شوكتي واللوف ولكن لي اسق اسبرعو انسلام اياه خير سومالي انا waxaan uga socota masiibo aan yareen baan uga socota masiibadaan yareen markaa weynaan ka hadalno gabadhii dhukura uga socota dhukurana waa masiibooyinka ugu waaweyn ee laga duceysto asarku wuxuu ku saabsan yahay maanta dhukuro iyo mid yaro kale oo ku saabsan yahay reer buqlaana Cabdimaalig Muuse Oldono soo hadlay ku Cabdimaalig Muuse Oldono yaa ku caawi dadka reer Buntland ee masaakiinta ayaa ku caawi arrinka la ingili doona shacabkan dadkan qadaadweynta reer Soomaaliya mid baan leeyahay reer Soomaaliya mid aan leeyahay waxa weeye laba kala daayay inaad hadhow soo cabaadiin aad ku walateen freedom fanaanad baa la xiray waxaas la sameeyay aad meelaha sidii shilmada madaxa ku soo duubatiin ya ambaarina degeeta gaarin inad ka dhageysanay imika badan laga qabtooy wata dhukuro wata wanaga socota raali kamina dal reer Soomaaliland anagu dhukuro iyo dhaqankeeda raali kamina imika badan laga qabsado dhukuro hadii kala hadhow tolo markaanu xidhno aan dhibaaxa inta ku dhufano asoo cabaadina oorana freedom iyo sheekadiina degeedkan gaarsiin way shacabka reer Soomaaliland mid baan leh reer Soomaaliland ka soo qaadbay dhukuro horta wadankeena horta way timi dhukuro maxay ku soo kordhinaysaa salaantan jambiyada xiran leh gebigood ba dhukuran maxay ku soo kordhinaysaa waxaan dhaqan biisayn bay ku soo kordhinaysaa gabadhana way ka baxday xeerkii fanka iyo suugaantu laa way ka baxday way soo dhukuratay suugaal bay soo xiratay fanka way ka baxday jamhuuriyadda Soomaaliland ka barakaysan lagu yaqaanay in hoyga in suugaanta argisa way ka baxday anagu dadka noocaas oo qomaluud baan noqonaa soo dhaweyn reer Soomaaliland gabadhaas oo idin timaado idin nikiso 20 doolar da siisaan 20 doolar waxa u baahan dadkan tabaalaysan abaara ay naafayeen baa u baahan 20 doolar ay wax u tarayaan dad kuwaas siiya inta tan qomaluud ka siin lahaydeen dhukura mid baan leeyahay dhukura ay kuma baahanin reer Soomaaliland noocaas kala dooma baahna shalay tolo wadi markan Mareykanka joogtay kan ilkaha waaweyn le ee jareerka dad ku wareysinayay أنا Soomaaliland حيرة كيا لما تقولنا إما كم حالك وش Soomaaliland يا وحبات شرا كل وحبات شرا نجد شوك وضد كينيان كذا شوك Soomaali تشوكا كوافطر أنا والد كم بانين وعن قاعد بانين ما شفتو ورئيس Soomaaliland كبر صادق تماط رجع كودي المايو قصص على رجيسة شوية كلين كبر صادق رجيسة لكن بيس كذا كذا حمله midbaan la labadan yaryar ee shimbiraha ay la socday shimbiyada ka jiraasay Tromanaas bay ka shaqeeyaan habartan weeyay taxiiran kule Hargeysa anaga Hargeysa cid kumaroonaysan labadii nibad duriyada waad ka baxdeen Soomaaliland agtii waxa ka tiin duqsibaad ka tiin labadii nibad duqsiga iyo idinku isku mid baatiin Soomaaliland waxa ka tiin ma jirto shadaadiin iyo qadaadweyn bad futaata u ruuxdeen adraaceen labadii nibad adiga iyo labadan dadka socda baad dhukuray dhagax baa idinku dilayay jeelka daloodha ayaa idin keenaya naa soo lugooyo walaal soo lugooyo Hargeysa keena jeelka daloodha ku cunaysa wallahi ee qabandiga way war gabadhaan iyo naga ilaaliya niyo dhaqanka xun leeyahay naga ilaaliya oo niyo garoonka Hargeysa taga oo ka ducaysta Ilaahay iyo naga Ilaahay dhukura shirkeedan ka baan kala dhaha